Dhageystayaasheena sharafta badan ee la socday sheekadeennii tixanaha ahayd ee isirtay ileen waa la qabay. Fadlan haddaad daawatay qeybihii hore, qaybtaana waa qaybtii afraad. Fadlan daawasho wacan. Sheekadeennii hore waxa ay noo maraysay saxardiid iyo waris oo dhabbada dhexdeeda marayo, iyo gabar dheer oo xijaab madow oo ka hor imaaday. Fadlan maxaa dhici doono? La soco. Hana iloobin inaad channelka subscribe noo dhahdo, maxaa yeelay waxay noo noqonaysaa dhiirigelin. Aniga iyo waris oo dhabbada marayno, waxaa nagu horyimid gabar dheer oo xiran xijaab madow. Waxa ay gacanta ku sidatay bac ay ka buuxaan alaabo. Xaggayga ayay ku beegneed. Qoftu marka ay noo soo dhowaatay, ayay dhaqso intay suma jirtay isku beegtay dhankii ay xigtay waris. Markaasay inta garabka ka taabatay la soo booday. Haye, saan miyaa? Waan ku sheegayaa. Waris inta isku naxday oo qac tiri ayay eegtay dhankii ay jirtay qofkii la hadlaysay. Mise waa ruux si wanaagsan ay isku yaqaanaan. Allah ma shariifa, naa maxaa sidaan oo dhan iga naxisay? Ma waalatay mise waa lagugu soo socdaa? Inta tiri ayay isku soo boodeen. Iska waran waris ayay la soo booday Shariifo ayada oo qoslayso. Alla fulaysana naagtu oo wadno weyna ayay tiri Shariifo, naa iga tag, fulinimadaada mooye waad iga naxisay. Kaftan iyo qosol ayay galeen. Meel aan sidaas ugu fogeyn baan istaagay si ay jaanis isugu helaan. Waxa aan dareemay in ay yihiin dad aqoon isku leh. Cabbaar marka ay iswareysanayeen ayay ismacsalaameyeen. Aniga iyo warisna hore ayaan ka sii dhaqaaqnay. Qiyaastii 6 bilood ayaa ka soo wareegatay markii aniga iyo waris yeelanay xiriirka. Waxaana noqonay dad aad isku xushmeeya, isla markaana si joogto ah u kulmo. Dhinacayga waxa igu laba jibaarmay jacaylka aan u qaaday waris markasta oo aan joogo shaqada, markii aan ku suganahay guriga, xitaa markii aan dhalinyarada la caweynayo. Qalbigayga kama baxdo waris. Waxaa la yaab igu noqotay gabadhan isku darsatay dabeecadda, quruxda iyo bashaashnimada. Maalin maalmaha ka mid ah, aniga oo ku sugan xafiiskayga shaqada, markaasina shaqaaluhu isku diyaarinayaan tukashada salaada duhur iyo qadada, ayaa waxa ay soo wacday waris oo codkeeda aad u hooseeyo. Waxa ay ii sheegtay in maanta baraqadii xilli ay ka adeeganaysay suuqa ay sura u joog u dhacday, kadibna ay miir daboolantay. Waxa ay ii sheegtay in xaaladda hadda sidii hore ka wanaagsan tahay, gurigana ay ku sugan tahay. Naxdin xooggan ayaan dareemay markii aan maqlay hadalkaas. Markiiba maamulka shirkadda ayaan weydiistay fasax, maadaama xaalad adag la ii soo sheegay. Nasiib wanaag, ayagana markiiba way oggolaadeen. Aniga oo meel kale ku leexan ayaan toos u aaday gurigii waris. Markii aan marayo ganjeelkii hore ee laga galo guriga, ayaa waxaa indhahayga qabteen 3 haween ah oo taagan ganjeelka weyn ee laga galo guriga. Allah maskiin, haddii ninkeedii joogi lahaa ma sidan bay ahaan lahayd. Hadalkaasi waxaa tiri mid ka mid ahayd 3dii islaamood ee taagnaa ganjeelka laga galo. Mid kale oo shareeran oo buuran ayaa markeedii hadalka qaadatay oo tiri, Allah maanta waris way sigatay. Wallee Ilaah baa u gargaaray haddii ay maanta nafta ka haadin. Inta yaabay ayaan socodkii xawliga aan ku socday gaabiyey si aan u dhageysto hadalladooda. Allah nacaawiyaa u weheliyeeli doona gabadha. Waxaa tiri midaan isiri way ugu daaweyn tahay. Waxa ay ahayd qiyaastii qof 50kii sii dhaafayso, waana islaan dhuuban oo cas. Labada gacmood ayay dhafoorada ku haysatay. Muuqaal ahaan islaantu iguma cusba, oo in badan ayaan ku arkay Nairobi, gaar ahaan suuqa loo yaqaan Amal ee ku yaala xaafadda Islii. Islaamihii sheekadooda ayay sii wateen. Waxaana u haladay in aan dhageysto hadalladooda. Mise waxa aan ka baqay in ay dareemaan, maxaa yeelay midii buurneed oo indhaha kuluc ka siinaysa ayaa dhinacayga soo eegaysay. Marnaba indhaha igama ay qaadan tan iyo ilaa aan ugu soo dhowaaday. Jaabka ayaan gacanta geliyey si aan ula soo baxo taleefankaygii gacanta. Markii aan soo bixiyey ayaa iska dhigay ruux taleefan garaacayo. Dabadeed dhagta ayaan saartay sidii ruux la hadlayo ruux kale. Dhammaan maqalkayga iyo dareenkayga waxa ay ku maqnaayeen dhageysiga hadallada islaamuhu sheegayaan. Maxaa yeelay waxaa wali qalbigayga diidan yahay hadalkii ahaa, Allah maskiinta, haddii ninkeedii joogi lahaa maanta sidaan may ahaan lahayd. Markii aan hadalkaa maqlay,
waxa oogadeydii oo dhan saaqay gelin waana tan keentay in sheekada islaamuhu haystaan aan dhageysto. Halkii aan guriga hore u geli lahaa ayaan isweydiiyey, maya macquul ma ahan. Qofta ay leeyihiin haddii ninkeedii joogi lahaa inay tahay waris. Maya waa laga yaabaa. Maya macquul maahan ayuu isweydiiyey. Aniga oo maankeyga la sheekaysanaya ayaa is iri, waa inaan hadalkaas meel ku soo ogaadaa. Ileen waa tii hore loo yiri, dad iyo duurbo waxaad filanayn baa kaaga soo baxo. Intaan kasii dhaqaaqay ayaan gudaha u sii galay guriga. Waxa aana cagta la helay jaraanjaradii laga galo guriga. Ma fogo guriga ay degan tahay waris. Waris waxa ay degan tahay bayaanada koowaad ee dhismaha. Waxa aan u leexday dhanka midig. Albaab buluugan oo ay deganeed ayaa markiiba gargaraacay. Aniga oo murugaysan, cabsi badanna iga muuqato. Waxa albaabka iga furay gabar yar oo dhuuban oo qiyaastii ahayd 16 jir. Markiiba inta ay xishootay ayay dib isku majiiratay. Allah eedanin ayay tiri, gudaha ayayna sii gashay. Waris waxa ay tiri markiiba, waa kuma. Markiiba waan gartay in qofka hadlaya ay tahay waris. Waxa aana ku iri, waa saxardiid. La soco qaybtii 5aad iyo sheekadii la magac baxday Isirtii Ileen waa la qabay.